asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan qeyrta solaashon dhagsan videogan waxaan fiirinaynaa sida LLMs u shaqeeyaan. mar badan waxaa maqashaan large language models ama LLMs se u shaqeeyaan, sidoo kale see loo train gareeyaa, maxay yihiin waxyaalahaas oo dhan ayaan fiiri doonaa. videogan wuxuu kamid yahay videogii saddexaad ee serieskeena uga hadlaynay ama aan ku fiirinaynay AI engineer. so haddii aadan daawanin labadii video ka horeeyay AI engineer waa maxay machine learning, videoda hore aan ku sharaxnay, please videodas gadaal u qaybta hoose description-kan waa soo gelin doonaa. videogan marka waxaan ku fahmaynaa LLMs sida u shaqeeyaan, sida loo train gareeyay iyo arrimahaas oo kale, iyo marxaladaha kala duwan oo maraayo, iyo different models kala duwan sida ChatGPT, Cloudy, Llama oo open source oo Facebook midka SMS ah. all that stuff ayaa ka farganaynaa. marka insha Allah wax badan kaaga bixi doona dhankan large language modelska. Let's go ahead and get started. so basically haddii lagu dhawaa maxay LLM, so basically LLM waa large language model, oo basically large language model maxaa haddii lagu dhaho waa AI systems oo lagu train gareeyay inta badan data oo text ah, kaas uu fahmayo ama generate gareey karo human like text ayadoo loo fiirinayo shaqooyin ama meelo kala duwan, sectors badan inuu wax ka daabaco. so as a developer LLMs waxa waaye waa incredible knowledgeable assistance. waa basically qof oo aqoon-yahan ah, wax badan fahansan, oo naga caabi karo, noo qori karo, noo aqrin karo, noo analyze garee karo, sidoo kalena sabab naga siin karo sida aan biniaadanka xataa in sometimes qoraalka u qori lahaa aan sii gudubno. sidoo kalena aad dhammaan aad ku access gareyn karto capabilitydaas dhan inaad qoraal qorto, akhriso, analyze gareyso through simple API call adoo aad sameynayo. so su-aala marka shakalanaysa maxaa ka dhigayo LLMska large. so 3 dimensional large u yahay ninkan large language model. sababta loo dhahay saddex sababaa jirto. ko, training data scale, datada lagu train gareeyay ayaa aad u weyn, that's why uu large u yahay. so waxaa lagu train gareeyay trillions of words aa lagu train gareeyay, oo internet content wixii internet ku jiray, bookska, articleska internetka yaalay, code repositories-ka wixii GitHub ku jiro, wixii Stack Overflow yaalay, news for iyo forumska waxaa la meelaha su'aalaha la isku weydiiyey oo Reddit oo kale ah, Quora midka la jiro iyo wax noocaas. waxyaalahaas marka lagu train gareeyay, that's why uu large u yahay. dimensionka labaad waxa waaye model parameters. modelka marka la train gareeyna waxaa lagu train gareeyay parameters basically aqoon leh waaye. GPT-1 oo kale waxaa lagu train gareeyay 127 parameters. waa macnaha inta xasuusta u yeelan karo waa basic parameter. more on next section ku fiirinayna. GPT-3 oo kale 175 bilyan lagu train gareeyay. GPT-4 waxaa lagu train gareeyay 1 trillion plus lagu train gareeyay. so bini'aadanka marka loo barbar dhigo, bini'aadanka maskaxdiisa waxaa la waa 100 trillion oo neural network ku jiro. so kan waxaa lagu train gareeyay 1 terabyte. so isku soo dhow xataa waqti u baahnaysa in bini'aadanka aqoontiisa la soo gaaro. marka haddii more parameters waxay u dhigantaa better understanding but higher cost and latency, which means haddii the more parameters uu bato oo AI-ga ama trainingka waxa fahamkiisa aad u xoogan, laakiin ku xisaabtan costiga iyo latency inoo badan. latency waxa waaye daahida, marka arrin ku sidirsid jawaabtaada xilli kugu imaanaysa. dimensionka saddexaad uu large u noqdo waxa waaye computational scale, oo ah inuu u baahdo waqtiga la train gareynayo waa months, maaha maalin iyo beri iyo lowma bilo u baahnaana in modelkan la train gareeyo. wuxuu u baahnaa doonaa GPUs 10,000 GPUs 100,000 GPUs ayuu u baahnaana si modelkan loo train gareeyo. OpenAI waa maqasheen markii wax la train gareynayo qaabka u soo saaraan 100 million plus ayaa ku baxdo in la train gareeyo modeladan oo large language modelska ah. so that's why aw arkaysid dadka ciyaalka xaafadda maxay u train gareeyay in model saas u weyn. Soomaaliya maxaa u train gareeyay ana model saas haddii asdhowsid abu meeshaan hadaa fiiriso waa la hadlooyaa. okay, hawsha ma sahlana macna waxaa adiga iska sameyn karta isla markii oo dadku wada shaqeynaya ma lacag xoogana loo baahan yahay, computation loo baahan yahay, GPUs waxaan dhan inaba caadi ma. marka that's why loo dhahay large language model 3 dimension ayaa laga fiirinaa. waa training data scale oo datadii fara badan, model parameterska ayaa badan,
iyo computational scale oo lacagta iyo GPUs-ka waqtiga ku baxayo aad fara badan. Core capabilities-ka waxaa ma taqaaniin inta badan waa inuu translation transformation sameeyo, text generation inuu sameeyo, question answering, analysis, summarizing, code generation, understanding the image iyo video waxbaa soo baxayba aad ku generate gareyn karto. Text generation oo kale example ahaan markii aad ku generate gareynayso text example ahaan waxaa weydiinaya react component in action generation action tusaalahan waxaa leedahay create react component for modern search bar with autocomplete is sameeyaa dhacda tusaalahan component yaanu ku sameynaa marka koodkan uu ku qoraa marka aad modelka weydiiso saa ujeedid search bar uu leeyahay suggestion iyo search uu qaadanaa waa kan functionkii iyo state uu sameeyey iyo state kale oo suggestionka uu tusinayo autocomplete-ka kadib filter uu sameeyey sim component uu soo celiyo so output input kana gelin outcome uu siinaa which is really amazing. So 2022 marka ChatGPT soo baxay game changer hadda waxa laga yaabaa inaysan ku lahayn laakiin xilligaas xasuusta marka ugu horeysay uu aan weydiiyay react component iyo qoraa dhahay magic dareemay magic hadda laakiin project inuu ku sameeynayo okay. So foundation model maxaa lahayd waxaa aragteen tusaalahan ChatGPT markay wax introduce gareynayaan in OpenAI waxay ku leeyihiin foundation model maxay ka wadaa foundation model waxa waaye hal tool oo task badan qabanayo tusaalahan foundation modelka basically waxa waaye in adoo Swiss Army oo knives badan macnaha bahalka boxka ma aragteen oo mindiyaasha badan ku jiraan oo in qaanda mindi badan waxna hal boorso oo kugu jirto waa qalabka guriga u baahnaa laheedo dhan marka hal tool oo qabanayo waaye anything markaas u baahatid ku sameynayo traditional approach-ka marka 2020 wixii ka horeeyay wuxuu ahaa translation AI hal only that translation uu sameyn jiray macnaha translation bis shaqadiisa ahayd summarization-ka qof gooniya qaba jiray code AI qof gooniya qaba jiray Q&A qof gooniya qaba jiray macnaha model gooniya sameyn jiray waxaan oo dhan marka 2020 wixii goray laakiin foundation model-ka wuxuu ahaa hal LLM wuxuu translate gareyn karaa summarize gareyn karaa code qori karaa wax oo dhan adaption wuxuu sameyn karaa same model waxaa lagu sii fine tuning gareyn karaa specific tasks tusaalahan hadda ChatGPT waxaa ku train gareyn kartaa specific task oo adiga shaqadaada ku ah tusaalahan kambanigaaga xogtiisa aad si gaar ugu dhiibi kartaa hadhow su-aalo waxaa laga weydii karaa ama aad information ka heli kartaa kambanigaaga waana halkii model la soco soo kale transfer lane uu sameyn karaa knowledge-ka wuxuu ka sameyn karaa hal domain kale ugu dhiibi karaa tusaalahan hadda open source model iska jira waa laga faa'iideysan karaa tusaalahan haddaan rabno use case Soomaali u gaar ah tusaalahan use case Soomaaliya jiro aad u fara badan oo aan insha Allah qorshaha ugu jirto dugsiyan qorshaha ugu jirto arano problema Soomaali gaar u ah in xalino luqadeena ah waxaa ka faa'iideysanaynaa marka languages-ka hadda jira macnaha open source models-ka hadda jira open source waa ka hadlaynaa asigana so open source models-ka hadda jira inaan si train gareyno oo ku train gareyno datadeena anaga gaarkan oo ah macnaha LLMs-ka soo shaqeeya marka basically so LLMs-ka basically waxa waaye analogy hadda idin tuso imagine ka soo qaad waxa akhrinaysaa every book ama article ama conversation walbo la qoray macnaha every book adduunyada yaalay article iyo conversation walbo dhacay ayaa haystaa qofa marka wuxuu ku weydiinaa waana waxaan marka akhriso wax xifdinay waa taqaana hadhow su'aal laga weydiiyo hore ka soo saaray basically ma qofa wuxuu ku weydiiyay what usually comes next su'aalahan waxa ku weydiinay leta su'aal lagu weydiiyay maxaa ku xigo lagu dhahay wixii ku xiga marka adiga book hebel aad su'aal wax laga soo qaaday information bookaas ayuu su'aal ka weydiiyay wuxuu ku dhahay what is reactive something so markii la dhaho jawaabta imaanaysa aad already waa taqaanaa because buugaagti wixii information ku qornay dhana akhris waa xifdis LLMs kan saas oo kale waxaa la tusinaa ama la baraa dhammaan wixii conversations articles books oo adduunyada yaalay afka loo gelinaa hadhoodii wixii la weydiiyay marka wuxuu ka soo akhrisanaa information kaas so attention mechanism waxa la hayaa jiro attention mechanism kan Google soo saartay 2017 I believe so attention ka day video kore si koobana uga hadlay hada aan sii faahfaahino transform risk marka in attention ita la gaarin waxa marka arinkan sahliyay waxa la dhahay transformer ka basically waa attention mechanism so transformer kan basically waxa waaye
intaana la gaarin before transformerka intuusan soo bixin waxaa jirtay traditional AI waxay ahaayeen textiga sida human u aqrinayaan short term memory loss, which means qofka asoo sentenceka aqrinayo waxaa laga yaabaa asoo meesha maraa inuu iloobo wixii intaan ka horeysa inuu xasuusto bas wixii asiga ku xiga oo u dhawaa bas inuu xasuustaa laga yaabaa. Transformerka muxuu sameeyey marka? Transformerka wuxuu soo kordhiyay wax lahaa attention mechanism. Attention mechanism waxa waaye modelka wuxuu focus saaraa any part of text anytime like inaa memory oo perfect ah haystid oo kale, kadibna uu access u heli karo any previous context. sida haddaa tusaalaha aan soo qaadayo oo kale, meelaa fadhinaa 10 qof ku fadhinaa waa casheynuna, qof walba marka maruu hadlaa, so qofka koowaad qofka toddobaad marka la marooyo hadalkiisa waa aqoonsanaynaa, asa attention ka siinayna. At the same time haddaa u baahana qofka koowaad wuxuu sheegay inaa u laaba karno oo xasuusan karno macna, marka attention ka saasaa laga wadaa transformerka saasay u shaqeeyaan. ama laakiin awal waxay ahayd 10 qof meesha fadhis qofka toddobaad wuxuu sheegay an bis ahaaya, haddaan dadaalo oo memorygii uu dadaalo qofka lixaad oo kale wuxuu sheegay xasuusan karaa, qofka shanaad ma xasuusan karo. marka transformerka game changer u ahaa hadda AI arrinkiisa iyo waxyaalahaas ekeed. Okay, so training process kasoo dhaca marka, so waxaa jirta two phase ama laba way oo ama average oo loo train gareeyaa jiro modelka, pre-training iyo fine tuning jirto. Pre-training basically waxa waaye in large language la tuso patterns, waa daatada wixii internet ku jira dhan la tusinaa, waxaa loo dhiibaa waxa la buugaagtii articleski codekii wixii ku jira internetka aa loo wada dhiibaa. Pre-training laakaas wuxuu fahmaa marka sorry informationkii internetka yaalay, grammarkii, englishkii, factiska ku saabsan about the world, tusaalahaan meeqa saasaa dhacday, nambarada factiska waxyaalaha numberska tusaalahaan sanadkii oo koobka adduunka 2006 yaa qaaday oo kale, hebelaa qaaday, meeqa goolay ku dhamaatay, waxaas nambaradaas oo kale factiskaas ayuu ogaanaa. waxyaal siinaa contextii siinaa, reasoningkii ogaanaa. adiga si good useful ma ahan, laakiin daatadii uu haya informationkii madaxa ugu jiro. marka haddii la rabo marka inuu si gaar u shaqeynin kan, tusaalahaan chat oo kale inuu ku shaqeeyo, in su'aalo marka la weydiiyo uu si sax ugu jawaabo oo kale, markaas waxaa dhacaysa marka fine tuning dhacaysa. fine tuning waxa waaye in aqoon gaar la siiyo, in tusaalahaan loo train gareeyo tusaalahaan specific information ama application behavior gaar in loo train gareeyo la dhaho adiga waxaa gaar u tahay wixii oo chatting ah, adiga waxaa gaar u tahay wixii code ah, adiga waxaa gaar u tahay wixii oo macnaha information noocaas oo tusaalahaan anthropic ama Claude oo kale waa aragteen wuxuu khatar ku yahay codeka. sababta maxaa waaye fine tuning waxay ku sameeyeen si gaar ah, waxay u train gareeyeen codeka. ChatGPT oo kale wuxuu ku fiican yahay conversationka, wada sheekeysiga, waxyaalahaas oo kale waxay si gaar ah u train gareeyeen wada sheekeysiga, qofka hadduu su'aal weydiiyo si uu jawaabi lahaa, qaabka intelligence wax noocaas oo kale. marka labadaas kale faham. Pre-training waxa waaye daatada internetka dhan taalay gacanta loo geliyey, waa la wada siiyey, laakiin si gaar ah looma train gareynin. fine tuning kan waxa waaye specific knowledge ama specific behavior in loo tababaro. okay, auto aggressive generation waxa waaye one word at a time. markii wax la wax generate gareynayo in AI ama large language inference processor la inference waxa waaye markii wax la generate gareynayo, hadaa maqasho inference inta badan waa maqlaysin ereygaas. so inference basically waxa waaye marka one word at a time, halka mar hal inuu generate gareeyo word, intii uu wax dhan hal mar gab ku sii lahaa wuxuu sida uu u shaqeeyo waxa waa modelka hal word generate gareyna wuxuu soo diiraa maxaa xigo, taasa xigto xisaabaadka la isticmaala behind scenes. su'aalahan hadduu generate gareyno let's say kasoo qaad explain how to make a coffee, markaa weydiino wuxuu step code wuxuu sameynaa contextiga, wuxuu raadinaa what's the best first word, ereyga ugu soo xigo ugu soo horeeya maxaa waaye markii la weydiiyo su'aal noocan oo kale. markaas waxaa la generate gareynaa to al generate gareynaa, kadib haddii wuxuu leeyahay maxaa ku xiga to make, mega ku xiga to make or generate gareynaa, haddana kadib waxaa leeyahay to make a coffee, maxaa ku xigi karo maxaa la xigo doontaan a coffee soo. markaas wuxuu generate gareynaa ilaa uu ka dhameeyo responsiga arkiis qaabkan uu ku imaadaa. ereygan erey ku xigi karo muxuu noqon karaa, ereyga erey ku xigi muxuu noqon karaa, saas is weydiinaa maanta ilaa uu generation kaaga dhameeyo. ma aha wax meel ku qoran oo hal mar gab kugu soo siinayo ma aha.
kadib final response wuxuu ku leeyahay to make a coffee start by heating water to 200 degree something marka qaabka u shaqeynaa qaabkaas marka waxaa dhici doonta stream response ah in userka stream loo siiyo su-aasha markaad ChatGPT aad wax weydiisid hore kaama siinayo wuxuu ku siinaa text by text waa aragteen streamingkaasaa laga wadaa inta uu ka dhameynayo context limitation limited jiro context waxa waa aqoonta ama xasuusta memory uu modelka uu xasuusnaa karo response variability isoo kale responsigan uu kala duwanaa karaa let's say the same prompt yani aad siinayna hadda aan jawaab kale siinaa adin jawaab kale ku siinaa because waxa waaye wax oo meel ku qoran ma ahan asaab predict gareenay mar walba wuxuu fiirinaa number lagu control jirta aydan taas oo aad variation ka dhigaysid the same response si laakiin inta badan isku jawaab ma ku siinay 90% wuxuu ku siinaa jawaab kala duwan ku siinaa kama ka LM generation ashaka hore ugu soo hadlay waxaa jira marka other major families had ChatGPT aan ka hadlaynay waxaa jira cloud shirkad la dhahay Anthropic oo ku code ka aad u fiican Llama oo Meta ay leedahay iyo Gemini oo Google leedahay jira asigana waxaa kaloo jira open source model research oo kale jiro self hosted iyo waxa noocaas oo kale aan fiirino marka la tii meeshan open source goorma isticmaalay closed source goorma isticmaalay open source waxa way basically waa model oo open source ah codekiisa wixii banaanka yaalo aad dib u sii train gareysan kartid closed kan waxa sida OpenAI oo kale hadda oo ChatGPT waa closed ma heli kartid adiga kaliya API ku access gareyn kartaa shirkadda iskale marka goorme API-gaas isticmaalay goorme adiga model aad leedahay isticmaalay ama open source goorme ka faa'iideysanay waa arrinka hadda ka hadlaynay hadda waa sii kormarina so cost oo kale marka rabto infrastructure cost laga rabaa closed source pay API call ku bixinay macnaha lacagta kaaga baxayso modelka marka isticmaalaysid closed source sida ChatGPT oo kale API ku access gareynay API-ga lacagta inta access gareys lacagteeda laga rabaa open source gan waxa laga rabaa infrastructure cost adi inaad GPU kuran gareysa leedahay waxyaalahaas aad haystid performance-ga latest capability heli kan waa good laakiin improvement rapidly kiskisu improve garooba privacy marka la fiiriyo datadaada waxa u diray provider-ka hadhoodii wax walba ka samaysan karaa datadaada private ku arki karaa laakiin kan adaa full control u leh marka open source hadii marka datadaada ay tahay mid oo sensitive asada sheegnay open source-ga aad maintenance marka la imaado aad ma laga rabo markii aad API isticmaalayso ayaga maintain gareey laakiin adaa laga rabo arrinkaas marka open source isticmaalayso best for quick start prototyping horta hadda marka aad AI baranaysid si u shaqeynaa waxaan API ku bilaabo ha isku ordin open source markii aad fahanto waxaan si u shaqeynayaan oo aad high volume and privacy needs ay imaado markaas open source aad inta ka horeys API-ga iska isticmaal okay yeah I think that's it intaas ku soo gogobeenana waxaan rajaynayaa hadii inaad fahanteen foundation models ka LLM ka uu shaqeeyo open source models ka goorma isticmaalay goorma closed source isticmaalay si training ku u dhaco fine tuning in pre-training maxay kala yihiin waa kala fahanteen so yeah I think that's it next video waxaan fiirinaynaa terminologies oo large language models oo kala sida request u sameyn karno sida generate gareyn karna anagoo API isticmaalayno and text, video, and voice, image, all that stuff, text to speech, speech to speech, all that stuff we're filming now next videos. Bye for now.